السلام عليكم وأنا شيف أبشرة ما أنتوا حنشوفنا حياة ماركت ما أنتوا حندين هيا وحقاد يا ذي فايدة بدن هون دد بدن وجين هاي نسرع حدو حنشوفنا قيبته دايت لما قيبوية هذا قيبته نص عنا ما أنت وقيبته دتك معاك قبل نسرع alright halkan waxaan ku haynaa baasto alright baastadan waxay ka duwan tahay baastooyinka kale korka markaad ka aragto wax badan kama duwana laakiin gudaha waxa ku jira markaad aragto wax badan bay ka duwan tahay baastadan waxa laga sameeyay qamadi saad u taqaanaan qamadigu kow maxaa marka qamadi baastada looga sameeyay tusaale ahaan maxay kaga duwan tahay baastooyinkeeni kale qaybtii macaankan joognaa alright baastada qamadi baa laga sameeyay macnaheedu waxa weeye qofka macaanka qaba xanuunka macaanka noqono sonkorta kulba soo taqaanaan oo cuni kara baastadan qamadigu wax dhulka ka baxa wax natural ah sonkor kuma jirto mana laha qofka macaanka qaba oo cuni kara waxa weeye dad badan markuu macaan ku dhaco baasto way ka maarmaan iyo maxaa dhacay kan waa maxay saad aragtaan waa bariis basmati alright dadka marka macaan ku dhaco bariiska basmatiga looma ogola bariis caadi ma loo ogola laana bariiska waxa lagu wuxuu leeyahay sugar natural sugar waxyaabaha lagu daro maadooyinka carbohydrateskiisa oo badan kan uu ka duwan yahay waa bariis si gaar ah loo sameeyay inuu cuni karo qofka macaan qaba soo badan awal hore waxa jirtay wadankeena markii la joogo qofka markuu macaan ku dhaco bariis baasto bur sonkor wuxuu dhan uu ka maarmi jiray noloshuna macaan yani Soomaalida hadaan bariiska baasta aad baan u cunaa bariis baasta hadii laga maarmo waa dhibaato so hadda u baahan tihiin halkan aad ka helaysaa alright maxaa kale soo haray burka ama daqiiq soo taqaanaan dadka macaan qaba looma ogola daqiiqda caadiga ah inay cunaan kan laakiin waa daqiiq laga sameeyay qamadi dad baa koornaya ma bakaaraha intaan tagaa soo shiito anigu waa samaysto ha watay kartaa samaysan kartaa laakiin say daqiiqdan u shiidan tahay iyo sida loo sameeyay uma warshadeyn karno oo waxa weeye waa dhibaatooyinka jiray wali ku jirta wadankeena xogaa dagaalkii saameynta nagu yeeshay ma jirto warshad bur samaysa laakiin burkan baakar boqolkiiba boqol waad kaga maarmaysaa burkii kale hadaad macaan qabto waad cuni kartaa maxaa kaloo inoo soo haray alright ta ugu arrinta marka ugu yara dhibka badan waa tan qof macaan qaba oo sonkor cunaya dad badan baa isweydiinaya haddaan macaan qabo sonkor seen cuni karaa okay maasha waa sonkor oo kale waa dadka macaanka qaba shaah hadduu cabayo hadduu kafee cabayo hadduu sharaab cabayo macaan la'aantii nolosha waa yar xoogaa dhanaan marka kan waxaa ku jira marka maxaa macaaneynaya bahalkan waxaa ku jira steviagu waa geed waa caleen ama dhir waa dhir baxda oo macaan weeye geedkan steviaha lagu leeyahay caleentiisu waa halkan ay ku soo waran tahay 200 oo mar ayuu ka macaan yahay sonkorta caadiga dhulalku ka baxaan oo native-ka uu yahay ama caadiga uga baxaa waa Brazil waa Paraguay area Latin America wali dhulka buureedu badan yahay soo sonkortan waxa jirta dad waxay leeyihiin maxaan u isticmaali kari weynay bahashan diet-ka badanaa la iibiyaa xabad lagu rido bahashaas inta ka dheeraan kartaa ka dheeraada macaanka horti iyada ku dilaysa waa sun wax gacan lagu sameeyo kan laakiin waa geed natural oo dabiici ah oo dhulka ka baxa soo yaa qof macaan qaba sonkor cunaya waxyaabahan hore loo arki jiray laakiin hadda wad helaysaa halkan aad ugu imanaysaa soo waakaas maxaa ku soo haray markii bariis baasto bur sonkor oo cuni kartaa adoo macaan qaba laakiin haw waa wixii la farsameeyo dad badan baa isweydiinaya hadda tusaale ahaan baastada noocyo kale way jiraan qasab ma aha inaad dhaadheer ama tan penada aad cunto iyagoo badan way jiraan saad aragtaan section kan oo dhan kan waa bariis kale magaciisa waxa la yiraahdaa waa mata rice adduunka hal meel uu ka baxaa indiana ka baxaa waliba gobolka la yiraahdo Kerala ka baxaa waa bariis dabiici ah aan waxba lagu darin dad ba waxay moodayaan brown rice
maha brown rice kan mutton rice baa la yidhahdaa cuntada hilibka uu ku macaan yahay ibn xataa kan desserts baa laga samayn karaa macmacaan soo saad aragtaan meeshan oo dhan waxa yaala wax dadka macaanka qaba ay cuni karaan boqolkiiba boqol waa safe anoo chef ah oo cuntada waxa weeye dee jaamacadu uga soo baxay fahmaya ayaa idiin sheegay boqolkiiba boqol waa safe waa la cuni karaa halkeenad ka helaysaan xayaat supermarket qaybta kale waxaan samayn doonaa hadda qaybtan waa qaybtii koobaad waxyaabihii basic ah daruuriga ahaa maxaa ku xiga qaybta labaadna waxaan tusaynaa waxyaabo yaryar oo fudud oo roodhida la marsan karo lagu quraacan karo waxyaabo kale oo dadka macaanka qabaa xogaa noloshooda u fududaynaysa qayb dambena la socda insha allah